maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso gaaban laakiin leh ku cibro qaadasho aad u qurux badan. waxa uu barta Facebook uu ku leeyahay soo dhigay nin lagu magacaabo Oliver qiso ku dhacday yaraantiisii. macallin u dhigay xisaabta ayaa waxa uu siiyey 10 aysan weligood hilmaamin. macallinkii waxa uu sabuuradda ku qoray 9 lagu dhuftay 1 waa 7, 9 lagu dhuftay 2 waa 18, 9 lagu dhuftay 3 waa 27, 9 lagu dhuftay 4 waa 36 ilaa 9 lagu dhuftay 10 waa 90. markii uu dhameeyay macallinkii qoraalka dhammaantiin waa wada qosolay sababtoo xisaabta uu qoray nambarka ugu horeeya ayaa ah mid qaldan. laakiin macallinka waxa uu noo sheegay arrintan qaladka ah inuu si kasta u qoray si aan u barano arrin muhiim ah oo aan wajihi doonno. macallinkii waxa uu inagu dhahay 9 isku dhufasho oo sax ayaan qoray. hal qof oo iigu hambaliyayna ma jiro. dhammaantiin waxa wada istaagteen halka nambar ee ugu horeeya aan qalday. dadku ma qadarinayaan waxyaabo wanaagsan ay aad sameeynaysan, laakiin dhammaantood waxay dul istaagayaan halka arrin ay ka qaldoontay. marka sidaas darteed haddii aad la kulantaan caqabadooyin iyo diidid waa inaad aqbashaan, horena uga socotaan, waxna aad ka barataan. Oliver waa ninka qisadan qoray. waxa uu yiri mid ka mid ah maqaayadaha ugu waaweyn ayaan ka shaqaynayay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa weel waxa uu iga jabay si aan ku talagal ahayn. maamulihaygii ayaa shaqada iga buriyay sababtoo ah waxa uu daliil ka dhigtay arrintaas yarta ayaan sameeyay. kadib waxaan soo xasuustay waanadii macallinkayga, waan dhoola cadeeyay, hore ayaan uga socday, wax saameyn ay iguma aysan yeelan. Oliver waxa uu ogaaday waanada macallinkiisii inay ahayd mid run ah. haddaba waa inaan si adag u qaadanaa waanooyinka oo aysan saameyn nagu yeelan caqabadooyinka aan la kulmayno, horena aan uga soconnaa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. la wadaag asxaabtaada.